بسم الله الرحمن الرحيم ولي waxaan ku guda jirnaa cookie bookska ayaan soo wadnay inkastoo wali aan dhaxda gaarin oo aan ku jirno casharada horeysay ama bilowga ahaa maantana waxaan qaadanaynaa alaab noo taalay dukaanka oo horaan aan ku shaqayn jirnay si manual ah oo buug qalin aan ku shaqayn jirnay ayaa waxaan rabnaa inaan quick bookska markaan fahnay inaan u bedelno manualkaas iyo buuggaas computer inaan u bedelnaa rabnaa tusaale anagoo dukaanka gadanayno dukaanka ayaa maxaa ahaydoo aan barnay quick books loo shaqeeyo kadibna marka waxaan rabnaa inaan iswaafajino alaabteena noo taalay iyo quick bookska oo computer noo duuban si aan u shaqeyno hab oo casriyaysan oo ka duwan buug iyo qalin marka waxaan rabnaa in alaabta noo taalo inaan diiwaangelinaa rabnaa tusaale ahaan marka waxaan tagaynaa lists aan tagaynaa marka waxaan sameynaa listaan sameynaa marka okay aan dhahayaa waxaan dhahaa item list waa listiga shay'aasha meesha ay ku jiraan waaye halkaan marka ay soo galayaan marka hadda tusaale ahaan waxba kuma jiro waa eber waaye waxaan rabnaa inaan abuurno marka shay cusban waxaa samayn kartaa mouse-kaaga iyo right click intaad okay dhahdo ayaa waxaa ku soo bixi karo waxyaabahan marka hadda tan markii inaan idin baro waxaan rabaa inaan idin baro hoos qaybtan hoose ku qoran item oo ah shayga alaabta meesha laga geliyo waaye okay dheh kor u bax new okay new markii aad dhahdo alaabta aad rabto inaad geliso oo aad maxayado aad ku save garayso cookie bookska alaabtaasoo ah alaab oo hore adi aad ku shaqeynaysay oo dukaan ku taalo oo beeceeda og tahay waaye iyo wixii aad kusoo gadatay in aad og tahay waaye marka ma aha alaab ma ahan oo maxayado adiga aad soo gadanayso waxaa ognahay company-geena aan abuurnay 50,000 aad ku jirto 50,000 ku jirto alaabtan oo hadda dukaanka loo taalana waa extra waaye ama dheeri waaye marka haddii alaab meesha aan gelino lacagta aan kusoo gadnay dhammaan wax dhan aan gelin doonaa kadibna 50,000 lacag ayaa ku darsami karto marka alaabta marka maxay tahay alaab ma inventory part miya service miya waxaan miya marka waxaan rabnaa alaabteena inay ahaato alaab inventory oo ah yani alaab oo lasoo gadanayo oo maxay ahayd wadana sii gadayso oo faa'iido ka dhex raadinayso marka service ma aha adeeg ma aha sida telefoona iyo minute la xisaabayo iyo shaqo aad qabatay ma aha ama wax aad intaad hagaajiso qof lacag aad ka qaadanayso ma ahan waa alaab shay la soo gadanayo oo adigna sii gadayso oo faa'iido ka dhexeelayso marka waxaa la yiraahdaa inventory part okay marka okay ku dhufato item name marka alaabta shayga dukaan ku yaalo magaciisa la yiraahdo marka tusaale ahaan sugar sonkor ama hadii kale af Soomaali iska qoro af Ingiriis haba iska badaa sonkor Brazil hadarto Brazil sonkor Brazil marka sonkor Brazil marka saan ku dhufato meelahan aad iskaga tagi kartaa intaad ku dhufato ama meel adig eber hada click siiso intoo kale okay waa uu ku diiwaangeliyay marka alaabta Brazil sonkortan oo la yiraahdo sonkor Brazil waxay kugu joogtaa qiimaheeda waxay ugu joogtaa oo kale tusaale 5,000 oo kale 5,000 okay sales price u sameeyo oo fixed oo adiga intaas ka hoos la gadi karin oo kale u sameey waa gadi kartaa laakiin markii computerka aad alaab gadayso isla markii wuxuu ku qorayaa fixed price-ka adiga meesha aad gelisay waxaan dhahaynaa waxaan gelinaa marka tusaale ahaan in aan gadayno 5,000 iyo 100 shilin ama dirta 5,150 dheh marka income account marka waxaa la rabaa alaabtan sokorta ah iyo alaabo kale markii la gado meel lacagta oo lagu gaday meel ay ku aruurto lacagtaas ayaa la rabaa marka oo account gooni ah marka account adi aad samaysan ma aha waa samaysan kartaa laakiin account oo ayaga waxa jirto oo macluum oo caan ah
oo la yiraahdo income account waa account oo wax alla wixii kusoo galo oo dakhli ah ayaa lagu aruuriyaa marka waa income account marka account magaciisana waxaa la yiraahdaa sales iba sameysay haddii wax agado wixii agado wuxuu galaa marka income account ayuu galayaa marka waxaan dhahaynaa marka halkan reorder point ka waxaa waaye alaabtan hadday gaarto tusaale ahaan 5 kiish oo kale yacni inaan order gastaan rabo oo kale isu xasuusi maximumna inay alaabtan ka badato ma rabi konton ama haddii kale 150 xabo marba waxaan rabaa 150 inaan soo qaato oo meesha u badan quantity on hand hadda tirada ku taalo oo dukaanka ku taalo meeqa waaye waxa ay taalo 9 oo kale ay taalo marka meelahaas ka dhufo waa kaas 450 ayaa lacagtii kusoo kor kusoo 150 xabo ay arwaa in yani maximum meesha u badan tirada noo taala waa 9 kiish ama 9 loor ayaa dukaanka taalo marka lacagta ay la fadhido 9 kaas kiish ama loor waa 450 waaye marka waxaa ogaanaysaa 50 oo aan ku furnay shirkadda dadka iska lahaana la sheegay dukaankana alaabtaalay sorry ayaa jirto oo gaarayso 450 marka waxaan dhahaynaa marka safe meelahan dhan waxaa la buuxin karaa alaabta manufacturekeeda oo hadda Brazil manufacture ama made in China oo kale qor kartaa ama made in Somalia oo kale marka hadda wax kale kuma qoreno halkan si fiican u fiirso oo si fiican ila soco kadibna okay waa dhihi kartaa next dhihi kartaa next waxaa waaye marka kan ii diiwaangeliye ku kalena haddana ii diiwaangeliye tusaalaan alaabka noo taalo marka dukaanka sokor taalo aan qornay waxaa kala rabnaa inaan wax kala qorno next aan dhahna okay waxa kala qoran waxa waaye baasto kale baasto aan qorayna halkan qiimaha inoo fido baasto waa 1,000 shilin oo kale baastada kale hadda waxaan qoraynaa 1,100 iska dheh 100 shilin inaan ka faa'iideyna rabno marka already asaa ku sii geliyay income account-ga oo sales account marka waxaan dhahaynaa next aan dhahaynaa marka next aan dhahaynaa okay intaan next dhihin waxaan dhahaynaa order point ma samayn karnaa haddana waan ka tagi karnaa haddana waan ku qoraynaa labada meelba sidoo kale teeda kale quantity on hand waxaan dhahaynaa 45 xabo oo kale aad noo taalo kadibna okay dheh waxay noqonaysaa 45,000 marka waxaan dhahaynaa next haddana teeda kale mid kale diiwaangelin haddaan rabno saliid oo kale oo ah 10 liter oo kale 10 liter cost qiimaha inuu joogto waxaan dhahaynaa 550 oo kale sales price kan gadayna waxa waaye 750 already asaga haddana noo sii geliyay waa saleska account waxay noqonaysaa marka income account sales okay meeqa xabo haysanaa marka waxaan haysanaa 70 xabo oo kale 38,500 noqonaysaa marka waan iska soo afjaraynaa 3 shay aan diiwaan gashanay marka waxaan dhahaynaa okay waa ujeediyay marka 3 shay aan diiwaan gelinay waxaa ka mid ah baasta iyo saliid iyo sonkor ayaa ka mid ah tirada noo taalana waa 45 oo baasta ah 70 oo saliid ah sonkor oo 9 ah marka haddaan eegno lacagta noo taalo dhammaan ama guud ahaan inta noo taalo maxay ahaydo inta noo taalo dukaanka ama shirkadda aan asaasnay 50,000 horaan waa noo taalay oo aan ku bilaabnay waxaana dukaanka alaab ku jirtay lacagta la-eg ama lacagta taalay waxaa waaye intan waa marka waa 5,150 meel ah 750 meel ah iyo meel 10,100 marka intaan aan soo dardareynaa marka waxaan dhahaynaa report
waxaan ogaanayna marka reportkaan tagaynaa reportka sifa aan u ogaano waxa oo exactly ama si sax ah oo noo yeelo reportkaan tagaynaa mar walba reportka waxaa laga eegi karaa waxa ku yeelo oo alaab haddii ahaan lahayd muxuu ahayd oo ma alaab ma aha yani lacagta ku taalo oo kale lacagaha ku ogaan kartaa marka haddii diin bixisay diinta intay amaada kaa maqan inta lagu leeyahay inta aad dadku leedahay inta maxay ahayd oo maanta aa gaday inta shalay gaday inta bishan gaday inta sanadkan gaday oo dhammaan waad arki kartaa marka waa reportka meesha aadka u muhiimka oo loo control ama looga ogaado waa QuickBooks waaye okay waxaan ogaano waxa lacag oo taalo ama waxaan ku shaqeynano ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay 3 shay konton kun hore inuu jirto Soomaa qarshna waan galnay marka waxaan leenahay company and financial hoose aadina balance sheet standard markaan nahno saan ayuu noogu soo baxay marka inta fiican fiiri lacagta lagu furay shirkadda waa 49750 laakiin waxay ahayd 50 ahayd laakiin account kan ayaan waxaan ka dhignay account oo maxay ahayd oo magaciisa lacagta lagu furay shirkaddan ahnayba hadarna magacaan ka bedeli karnaa darno magacaan ka bedeli karnaa waxaan tagi karnaa editkaan tagaynaa waxaan tagaynaa chart of accounts aan tagaynaa lacagta lagu furay shirkadda waatana marka waan bedelaynaa magac kale aan u qoraynaa si fuu nooga halaabin luqadda Soomaaliga edit account anayna marka sanduuqan ayna marka darno sanduuqa shirkadda 7 kilos hadda kadib account-kiina sanago noo soo bixi doonaa iska xir waa ka saafiya sanduuqa shirkadda 49750 ku jirto marka okay inventory asset hada maqsho waa hanti inventory waa alaabta waa marka hantida alaabta taalo dukaanka waa 533,500 waaye marka labadan lacag la isku daray oo ah sanduuqa shirkadda lacagta taalo oo kashka ah sanduuqa shirkadda waa intaan ku jirto wixii alaabna inventory asset na waxa waaye 533,500 haddii la isku daro wadartu waxay noqonaysaa marka 583,250 ayay shirkadda hadda hanti ahaan u haysataa marka haddii ahaan lahayd alaab oo u taalo dukaanka iyo alaab ama lacag kash ah oo iidal yani lagu maalgeliyay oo lagu furay intaas ay haystaa marka okay hoos u dhaadhac marka equity hantiile hantiilayaasha marka dadka waxaan ahnay leen markii 50 kun aan bilaaweynay dad baa iska lahaa oo shirkad waa shirkoobin cali doodaya oo kale cali doodaya wuxuu leeyahay 3 kun dhahnay naciim waxaan dhahnay 10 kun leedahay hoos aad kan ka boot sahro ciil waxay leedahay 10 kun marka opening balance equity soo baxay marka oo opening balance equity maxaa ahayd marka lacagtan wili lama caymin waxayna dhahay dukaanka alaabta taalaan ku dhahay alaabta dukaanka taalo lacagtaas ay la fadhidaa oo 500 iyo 3 alaabta marka dukaanka ayaa iska leh iyo intee ka imaatay iyo in la isweydiiyo moogtay dukaan baan ku dhaaniga marka dukaankaas waxaa la dhihi karaa lacagtan shakhsi kale gooni ah lahaan karo ama waxaa lahaan karoba maxay ahaydo dadkan hadda meeshaan kusoo tirnay cali dooda iyo naciim iyo sahro intaasaa lahaan karto waa labada qeybin karaa haddii kalena qof baa iska lahaa horaan hore oo tusahaan oo iska gadaya dukaanka qofkaasaa iska lahaa la dhihi karaa lacagtan waa lacag hadda ma cayimna war waxaa waaye haddii af ingiriisi aan haddii aad dhuuxdo waxaa waaye balance iska furan waaye oo hanti iska furan oo cidna la magacaabin waaye haddaan rabno inaan magacaabno waan tegi karnaa insha allahu tacaala waa 10 kale ayaan ka dhigi doonaa 10 kaas oo noqon doono 10 aan ku faahin doono insha allah noocan oo kale sida loo leeyahay doono waxaan dhigi karnaa nooc kale oo qof inuu lahaa oo leeyahay ama waxa kale oo dhigi karnaa dadkan aba u qeybin karnaa lacagtaas marka intaana insha allahu tacaala aan kusoo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh